الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة قيمة بدن كسر دو وبيكتيج maanta mawduuceena waxaan uga hadli doonaa sida loo soo celiyo xog aad ka tirtirtay facebookkaaga, page ahaado mise akoonkaagaba intaba insha Allah binilaahi kareem. intaan muuqaalkan gudagelin fadlan waxaan ka codsan lahaa haddii aad channelkan ku cusub tahay inaad subscribe inoo sidaas la mid ah muuqaalka la gelisid. haddii aad page ka daawanaysid fadlan page-ka inuu follow gareey sidaas la mid ah muuqaalka la gareey sidaas la mid ah asxaabta la sii wadaag insha Allah. bal yaan hadalka ugu daalanayn muuqaalka faahfaahsan aan isla bilaabano. ugu horreyn waxaan tagi doonaa barteena Facebook markaan tagno qaybtan ay ku qoran tahay saddexda dhibcood ayaan ku dhufan doonaa. saddexda dhibcood markaan ku dhufano profilkina ayaan gudagali doonaa. profilka markaan u gudagalno postigan ayaa u dambeeyay. waxaan sameyn doonaa waan delete gareyn doonaa. markaan aan delete gareeyo moving ayaan dhihi doonaa. delete ayaan dhahay wuu baxay. haddii aan go to the recycle bin aanan ka fiirinin bal fiiri inuu baxay in kale. okay, sida halkan kaaga muuqato wuu baxay. kadib hadda waxaad tagi doonaa sida halkan kaaga muuqato saddexdan dhibcood ayaad tagi doontaa. saddexda dhibcood markaad ku dhufatid hoos ayaad u bixi doontaa. hoos markaad tagtid kadib meeshan ayay ku qoran tahay settings and privacy ayaad ku dul dhufan doontaa. settings and privacy markaad ku dhufatid qaybtan ay ku qoran tahay private shortcut ayaad ku xulan doontaa. private shortcut-ka markaad ku xulatid hoos ayaad u wadi doontaa. sidan hoos markaad ugu socotid hoos ayaad u socon doontaa. meeshan ay ku qoran tahay see your activate log ayaad kusii dhufan doontaa. markaa sidan ugu dhufatid sida halkan kaaga muuqato halkan waxaa kugu soo qabanayo manage your posts, sidoo kale recycle bin qaybtan waa archive wixii status soo dhigtay iyo wixii oo status markaa soo dhigtay kadib uu delete gareedmo ayaad meesha ka arki doontaa. marka anaga hadda qaybtan oo noqoseedo oo muhiimka inuu ah waa qaybtan ay ku qoran tahay recycle bin. qaybtaas ayaa ku dhufan doonaa. markaa sidan ugu dhufano sida halkan kaaga muuqato waa 5 April 2023 postigii aan delete gareynay. marka waxaa sameyn doonaa meeshaas ayaan taaban doonaa ama tick ayaan saari doonaa. sida halkan kaaga muuqato laba option uu kusoo qabanaya. qaybtan oo ah archive, qaybtan oo ah restore inay dib u celiyo. qaybtan saddexda dhibcoodna waxaa ku jirto inay delete gareeyo asiga dhan. sida halkaas saddexda dhibcood markaa ku dhufto sidaas uu kusoo qabanayaa. sida kalena kaaga muuqato archive oo ah inaad qarisid, sidoo kale restore inay dib u celisid, inaad dhahdid delete. marka waxaa sameyn doonaa restore ayaan dhihi doonaa. dib ayaan u celin doonaa. wuu laabanayaa postigaas wuxuu ku laaban doonaa isla qaybtii hore aan kasoo delete gareynay. qaybtii hore aan kasoo delete gareynay sida ugu fiirinaa waa kina postigii sidiis ayuu usoo laabtay. insha Allah binilaahi kareem maanta muuqaalkeena intaas ayaa idinkugu talagalay. haddii aad u baahan tahay page-kana sidaas la mid ah leeyahay activate login oo kaliya ka fiirinaysaa. page-kana waxba kama page-kaaga hadduu uu ku yahay new page experience waa isla qaabkaas oo kale. insha Allah binilaahi kareem tan intaan kulmi doono muuqaalkan oo kale waxaan idinkaga tagi doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. biidinkii waqtigaaga ka faa'iideyso.